iyadoo fooday nagu sahayay imtixaanaadka shahaadiga ay qaado wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu dugsiga sare Amal Secondary School ee magaalada Burco oo munaasabad balaaran isla markaasina si meeqaamkeedu sareeyo loo soo abaabulay uu sabooto nagu sameeyay ardayda kala duwan ee ka baxaysa fasalka afraad ee dugsiga sare ee dugsigani Amal Secondary School ee magaalada Burco. Munaasabadani balaaran ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, mas'uuliyiin ka socota xisbiga kulmiye heer qaran iyo heer maamulka iyo macallimiinta dugsigani sidoo kale ardaydani la sabootinayay. Ugu horeyntiba waxa munaasabadaas hadallo kala duwan oo isugu jira duco iyo dardaaran ka soo jeediyay maamulaha dugsiga Amal Secondary School Cabdiqaadir Sardhay iyo sidoo kale maamulka ku-xigeenka dugsigaasi. Mudanayaal iyo marwooyin aad bay maanta sharaf noogu tahay inaga soo qayb gashaan xafladda sagootinta dufcaddii saddexaad ee fasalada afraad ee dugsiga sare ee Amal. runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta aragno sii sagootinno wajiyada quruxda badan leh oo bixii dalka oo dhamaysanaya marxalad muhiim ah oo kamid ah marxaladooda waxbarasho. aad baan ku hambalyeynaya. runtii dugsigu wuxuu soo aasaasmay oo soo bilaabmay sanadii 2011 isagoo ka jawaabay baahiyaha gobolka ka taagan. dufcaddii saddexaad baa maanta baxay. waxaan runtii ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ee u dhamaysateen dugsigiinii. waxbarasho dheer baa soo wadeen muddo 12 sanadood ah. 4 sano u dambeeyay badankiina waxaan la joogteen annaga. waxaan marxaati ka ahay oo marka ka kacaya inaad tihiin arday dhisan akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaan. waan idin ducaynayaa. waxaan idinku ducaynayaa inaad noqotaan qaar aflaxa aakhira iyo adduunyo. imtixaanka weyna aakhiro iyo imtixaanka yar ee adduunyada waxa weeye marxalad kamid ah waxbarashada ayaa hadda ka gudubtay, laakiin waa barbula cusub oo aad ka bilaabayso waxbarashadii. sanadka maanta haddii la yiraahdo imtixaanaadka shahaadiga markaad qaadataan waxaad qaadateen furihii aad ku sii baari lahayd cilmiga maanta aynu dhiganno dhammaantii waxaan oran karnaa horta waa cilmi diiniya weeyaan oo diintu ka wada yimi. ardayda macallimiinta waxbaraysay inta halganka ku soo wada jiray waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo muxuu haayay kuwii tacabkooda u xasilo wixii ay wax u baranayeen iyo ujeedada ay wax u baranayeenna ilaahay kuwa uu siiyo oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba ku anfaca. geesta kale waxa halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay xildhibaan Cabdilaki oo kamid ah golaha deegaanka degmada Burco, gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga xaakimka kulmiye, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. waxaanay hambaliyay bogaadin u soo jeediyeen ardaydani. aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan kala soo qayb galno xafladiina sagootinta ah. idinkuna macallimiintiina aad ku soo sagootiyeysaan xaflad qiimo weyn leh. waxaan kula dardaarmayaa waxaad galeysaan dadaal dheer, waxaad haysaan ardaydii reer Soomaaliland oo dhan halgan baad ku jirtaan. horta Allah idin fududeeyo halka aad ku jirtaan. insha Allah ana waxa idin rajeenayaa inaad noqotaan ardayda qaranka ugu sareeya. aad baan walaalayaal boqolkiiba boqol idinku hambalyeynaya qalinjabinta dugsigii dafcaddii saddexaad idinku ah dugsiga Amal Secondary School. aad baan idinku ducaynayaa inuu Ilaahay kuwii aqoontooda sii hormariya maadiyan iyo diiniyana kuwii iska rabooda Allah idinka yeelo oo diintu mar walba waa kaabiso waa guul bay idin tahay. akhlaaqda wanaagsan ee maamulkiin idin qireen baaba sharaf idin ah. aqoon ahaan inaad halka taagantiina inta idin fureen baan leenahay waan ku hambalyeynaya Allah idinku garab galo. ducana waxa idinku filan walaalayaal. imtixaanka adduunyadu waa basiid. imtixaan lagu guuldareysto waxa ugu khasaaro badan oo ugu hoog badan ka aakhirad ku guuldareysato waana mid in wada horan qof walba walaalayaal baa ka dambeeya ina u sahay qaadataan oo akhlaaqda wanaagsan iyo cilmiga diiniga ah mar walba walaalayaal in noqdo laf dhabar oo midita ku haysataan bixdana maadiga ku wadataan baan idinku dardaaraya aniguna. waxaad noqon doontaan kuwii wadanka madax ka noqda ee madaxweynayaal iyo wasiirro u tartama ilaahay idamkiisa. aad iyo aad waxaan idinku hambalyeynayaa qiimihiina iyo sharaftiina idinku hambalyeynayaa. waxaan kaloo aad ugu hambalyeynayaa macallimiintiina ayaan aad ugu hambalyeynayaa. waxaan kaloo hambalyeynayaa dugsigan sida loo dhisay iyo sida loo qurxiyey iyo dhaqaalaha loo quuray iyo sida loo wanaajiyey iyo sharaftiisa iyo inuu ummad fara badan ee hoolka aynu fadhino kale uu hanan karo sida caawo kale. waxaan idin rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in imtixaankan aad keentaan meel wanaagsan. gobolka sanadkan aad baa loo hadalhayaa waayo sanadkii hore ayuu gobolku aad u wanaagsanaa oo kaalmihii ugu horeeyay dhulka. laakiin waxaan rajaynaynaa wax kastoo la yimaadaba inaad muujin doontaan haddii Ilaahay yiraahdo aqoontiina iyo waayo aragnimadiina
xaqiiqatan dee wakhtiga badan la soo geliyey ee laydinku maamuusay waxyaabaha aanu diyaarinay sanadkan waxaa ka mid ah in ardayda aanu siino talooyin si ay u gartaan bal waxa ay dooranayaan iyo waxa ay doonayaan mustaqbalka inay ku takhasusaan ama jaamacadda fakaltiga ay doonayaan inay sii wadaan inaanu kala talino sidoo kale intii munaasabadaasi socotay ee waxay ardayda kala duwan wax ka baratay dugsiga Amal Secondary School ee magaalada Burco ay halkaasi ku soo bandhigeen suugaan iyo sidoo kale riwaayad ka turjumaysa muhiimadda aqoontu halka ay xubno ka mid ah ardayduna ay halkaasi ku soo bandhigeen barnaamijyo ay sameeyeen oo ka mid yahay scientific calculator iyo sidoo kale website dhammaan maamulayaasha iskuulka Amal Secondary School ardayda iyo waalidiinta qiimaha badan leh ee caawa ku indhadoogsanaya ubadkoodii oo hortooda ku muujinaya heer ka mid ah heerarka waxbarashada waxaa kale aad iyo aad ugu mahadcelinaya waalidiinta qiimaha iyo qaayaha leh ee caawa hortooda ku indhadoogsanaya ubaxoodii oo gaadhay heer ka mid ah heerarka waxbarashada aad iyo aad u mahadsantihiin gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland hambalyo dhammaantiin ardaydiina form 4 ka baxaysa dugsiga secondary Amal waxaan idinleeyahay hambalyo sharaf iyo maamuus iyo magac bay noo tahay dhanna wasaaradda waxbarashada inaan kala soo qayb galno qalan jabintiina u dambeysay insha Allah ta'ala aanu idin rajaynayno mustaqbal baahira oo jaamacadaha iyo qaybaha kale cilmiga insha Allah ta'ala ugu diyaar garoweysaan wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco